maanta waa maalinimo sabtiya waa maalinta uu ka bilaabmayay shirkii ay ka tashiga beelaha Sool Sanaag iyo Cayn magaalada Laascaano saaka magaalada Laascaano waxay la soo kacday jawi kale goobta shirku uu ka qabsoomayay ayaa lagu waabaristay judhi horeba indhuhu waxay qabanayeen calanka buluuga oo ka dhex babanaya goobta shirku ka qabsoomayo baxdaysimada dhaqanka ayaa dhammaanba soo xaadiray oo ka kooban 16 xubnood sidoo kale iyaguna waxa aan goobta ka maqnayn sida la sheegay 33 xubnood ee hore lagu magacaabay in shirkani ay soo qaban qaabiyaan durbadiiba waxa bilaabmay hadallada ay soo jeediyeen baxdaysimada aqoonyahan iyo haween ka soo qayb galay madasha daawadayaal wararkaasi iyo warar kale intaanaan ugu dagelin halkani waa kanaalkan sixinta wararka ku soo dhawow oo ka mid noqo boqolaalka kun ee qof ee sida joogtada u hela wararka iyo warbixinada bartinaanu ku soo gudbino saaka magaalada Laascaano waxa ka bilaabmay shirkii ay ka tashiga beelaha Sool Sanaag iyo Cayn kaasi oo durbadii horeba dadku ay ku soo kaceen waxaa ishu qabanaysay calanka buluuga iyo sidoo kale calanka khaatumo oo dhexda kaga yaalo faraska cadi si kastaba ha noqotee haddana xaalku muu ahayn sidii la rabay balse xaalku uu isbedelay Somaliland ayaa dhankeeda aad u danaynaysa qodobada ka soo baxaya shirkani sida la sheegay shirku waxa uu soconaya muddo 3 maalmood kaasi oo bahda isimada dhaqanku ay soo jeedinayaan hadallo kala duwan balse dhammaantood hal dhinac isugu biyo shubtay kaasi oo ah in Somaliland ay iskaga baxdo gobolka Sool si kastaba ha noqotee haddana isimada hadlayay ayaa hadalladooda qaarkood u ekaayeen sida tan Somaliland deegaanka ayay nagula sugan tahay balse waxaan ugu baaqaynaa in ay gabi ahaanba iskaga baxaan deegaanka maadaama hadda ay beelaha Sool Sanaag iyo Cayn ayahooda ka tashanayaan qaar kale waxay soo jeedinayeen in halkan lagu qaadan doono go'aanka horseedi kara in bulshada deegaanku ay sii xasisho boqolka sano ee soo socda rayida oo midaysan ayaa ka soo kala baxay baxdaysimada gudida shirka soo qaban qaabisay culimada iyo waxgaradka gobolka Sool geesta kale haweenka oo iyaguna aan madasha ka maqlayn ayaa sheegay in hablaha SSC markasta ay garab taagan yihiin baxdaysimada iyo sidoo kale wiilasha u dhashay deegaanka si kastaba ha noqotee dhinacyada kala duwan ee daneynaya xaalka magaalada Laascaano waa maalin ay aad ugu fogan yihiin hadallada iyo qoraahaha ka soo baxaya beesha halkaasi ku shiraysa su'aalo badan ayaa dul hoganaya beesha go'aankee ayay qaadan kartaa shalay waxa baraha bulshada lagu arkayay in beesha dhexdeeda isqabqabsi ka jiro balse taasi waxa maanta burisay in shirki uu horay u sii furmay walow hadda aan la arkaynin khilaaf hadda dabada u soo baxay balse baraha bulshada qaarkeed ayaa lagu qorayaa in wali uu jiro khilaafkii shalay dhacay balse taasi waxa burinaya shirka oo sidii lagu talagalay u socda saddexda cisho marka uu socdo shirku maalinta u dambeysay waxa la sheegi doonaa qodobada dhammayska tiran leh ee isku raaceen isimada dhaqanku maadaama maanta ay ahayd kaliya soo jeedin iyo afkaar kala qaadasho si kastaba ha noqotee inta la baahiyay waxa ka badan inta qarsoon ee aan dabada u soo bixin soona bixi doonta maalinta ugu dambaysa shirka oo ku beegan maalinimada Salaasada si kastaba ha noqotee saaxiibayaal waxaanu si dhow iyo si dheerba idinku soo gudbin doonaa muuqaalada kala duwan iyo sidoo kale xogaha kala duwan ee ku saabsan gobolka Laascaano taasi oo aan mar walba muhiimadda saari doona sidii aad wax badan uga ogaan lahaydeen xaalka Laascaano wajahi doonto boqolka sano ee soo socda la soco wixii wararka ka soo kordhay magaalada Laascaano